hadda waxay u muuqataa in diiwaangelintii madaniga ahayd lagu xidhayo maxaan ku rahdaa diiwaangelintii codbixiyaha hase yeeshee xeerkii diiwaangelinta madaniga iyo xeerkii diiwaangelinta codbixiyaasha midna ma soo bixin weli kii codbixiyaasha haddaan gacanta ku haynaa guddiga iyagaa wada insha allah fadhigan waxaa la filayaa in maxaan ku rahdaa lagu ansixiyo xeerkii diiwaangelinta madaniga ahaa weli ma hayno sidaa darteed iskuma xidhmi karaan sababtoo ah diiwaangelintu waxa ay tahay inay bilaabanto September 1 maantana waxaynu ku jirnaa July June July iyo August baharay suuragalba practically suuragalba maaha in diiwaangelinta madaniga inta lagu dhameeyo haddii lagu dhameeyana waxay ahayd waxay noqonaysaa in iyadoon xeer lahayn la dhaqan geliyo ama la fuliyo anigu ma garanayo hadhowto markaas siday u dhaqan gelis waxaan xeerkii maxaan ku dhahay saldhiga u noqon lahaaba aanu jirin sida looga horeysiinayo diiwaangelinta aanu garan maayo waxaan oran lahaa ugu baaqaya wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynahaba xeerkii diiwaangelinta in la keeno golaha wakiilada si looga doodo loo ansixiyo ama santii xeerkani markii hore xeerkan uu dhaqan galiyay madaxweynaha xildhibaan Reete miyaanu soo marin golaha wakiilada oo soo ansixin way waxaan ognahay madaxweynuhu ma ansixi ma dhaqan galiyo waxaan golaha wakiilada soo marin miyaanu soo marin idinkoo aydan ansixinin xeerka diiwaangelinta muwaadiniinta reer Soomaaliland haddii uu soo maray maxaad qoonsateen ka xeerkaasi lama soo marin waxaanu sugaynay in wasaaraddu keento wasaaradda ay tahay inay soo halaburto dabeedna golaha wakiilada keento golaha wakiiladu ka doodo wixii uu ka bedelo wixii uu ku daray ku daro dabeedna uu sida golaha gurtida maro madaxweynaha maro uu sida ku dhaqan galo waxaanu ku warhelay in madaxweynuhu halkii xeerkan ka sugaynay xeer nidaamiye uu ku bedelay oo soo saaray isagoo kaalintii xeer dejinta uu qaatay arrintaasina waa arrin dastuurka khilaafsan oo ka soo horjeeda waayo xilalka iyo waajibaadka waxaa kala duwan dawladdu way kala cad yihiin iskuma khaldanayaan maxaan ku rahdaa xeer dejintu marna uma wareegi karto waaxda fulinta xildhibaan su'aal ka baxsan haddaan ku weydiiyo isla mawduucayna shirkii Turkiga ee Soomaaliland iyo Soomaaliya socday hadda waxaa la shaaciyay in Soomaaliya ay dib u dhigayso iyadoo marar horena dib u dhac ku yimid adigoo ku hadlaya ka mudane ka tirsan golayaasha qaranka ama golaha wakiilada Soomaaliland arrintaas soo aragta markasta xukuumaddeena la tilmaamay inay tahay taw heelan inay ka qayb gasho laakiin Soomaaliya hadda aanay ka ahayn diyaar marka ay tidid gudoomiyihii Soomaaliya oo mataliyo waxa uu si kalima gudaha hore oo kiis asilay anigu runtii madmadu aad fara badan baan ku arkaa wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland waxaan arkaa inaan daahfurnaan jirin waxaan arkaa inaan golaha hadday tahay iyo hadday shacabka tahayba inaan si fiican looga xog waramin waxa ka socda ama ujeedooyinka laga leeyahay ama qaabka uu socdo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland waxaan madmadow ku arkaa hataa sida qaabka loo wado ee looga qayb geliyo wada hadallada oo markii hore ku bilaabmay qaab national ama qaab maxaan ku rahdaa qarameed maanta se u muuqda in yar oo xukuumadda ka tirsanay ay hawshii la wareegtay wax kastoo ay gaadhaana aanay waajib ku noqon doonin dadka aan ka qayb gelin ama aan la socon maxaan ku rahdaa sida waxyaabaha la gaadhay loo gaadhay waxaanuna xukuumadda leenahay mar kale wada hadalladu
maaha arrin xukuumaddu gaar u leedahay maaha arrin xisbi gaar u leeyahay maaha arrin in yar ka go'da waa talo qaran waa arrin qaran waxay u baahan tahay ka qaybgal intaa ka ballaaran waxay u baahan tahay aqoon iyo khibrad ka badan dadka ka qaybgelaya inta ay wataan ama ay sitaan waan wada garanayno